بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عبد الشيخ محمد كلاس فقانا رقدنا في يوتيوب بيان وعظة waxaan ka hadlaynaa kilalka ama Ogaadeniya ama DDS ama Soomaali galbeed cid walba soo taqaano baan ka hadlaynaa. markaas waxaan rabnaa inaan ka hadalno wacyiga jira iyo sida dadka magaratadii ay u ciyaarayaan bilaadanka baan doonaynaa inaanu gelnoon ka hadalno. markaas darteed waa la soo garaacayaa dad dana kale wato weeyaan iyo dana kale leh laakiin uma joojinayno. waxaan ka hadlaynaa wacyiga ka jira Ethiopia iyo dhammaan geeska Afrika waxa ka jira wacyigan ka hadlaynaa. dadka xaqiiqda waa inaan sheegno adduunka in badan baan ku soo dulnoolay maanta waxaan garan weynay dib uma garanayno. geeri baa noo hadhay laakiin gabow iyo geeri bas laakiin garashada aan maanta dib u helayno. marka waxaan rabnaa dadkan imika shalay waxaan daawanaysaa maanta birqod dhalinyaro loogu soo xiray Axmed Budulkan guuna qaatay marna cabdiilo heesa marna marba fakinkii joogo meesha u heesa ee u dhaanteeya iyo dadkan caloosho shaqaystayaashii dhalinyarada aan dabka ku shubin. sidaa darteed waxaan rabaa inaan ka hadlo oo kale imika waxaa la sameynayaa waxyaabo badan oo dadka la soo jiidanayo xataa dad baan igu soo qaldamay oo moodaya ciyaalka yarar wax loo sheegi karo sida Riyaal Xaamid oo kale aan igu soo qaldamay. Riyaal Xaamid horta aad baan u taageeri jiray Riyaal Xaamid laakiin Riyaale xataa meeshii maalintii dhow isku soo wareegay ma ahayn Garbaciise meel kale ahayd la faciisiya meelahan ahayd Jigjiga agaheeda gobolka Jigjiga. imika Sweden buu joogaa maanta dad soo ageejiyay heega yaa la yiraahdaa Mustafa Cajar baa heega kamid ah oo heega dhax fadhiya heega yaa la yiraahdaa waxaan magaratada loogu sheegaynaa noogu sheekaynina qofku dantiisa ha wato laakiin anigoo kaliya soo doonanin haddii una rabina sumcadda ka mayro oo dib xataa dad hadal uga hoos qaadin. Riyaal waad u qalantay aniga ciyaal yar badan oo hayso adeegsanin fogaana akbar aniga amaantana iyo waxaana kama helaba anigu fogaana miye fakin baan haddaan doono aniga waxaa ila iman Riyaal adeer meeshaad ku dhalatay bay canfar gumaadaysa haddaad wax u qabanayso qabo waxba Riyaal Cabdiliya reesa ka dhax shaqaynin heegi iyo ka sheekaynin Riyaal horta heegi waxa ka sheekaynin ame haddaad wax u qabanayso cid dadka ka dhalatay waa gumaadaya anu saan hataa dhiig baan leh anaga markay Ethiopia dhaysan ciise waxba nooma qaban jirin laakiin anu sida aan ahay waxaan jeclahay ciise wax loo qabto oo hataa gabi waaya laakiin adigu ogaadeen maxaa suuqay absameeska maxaa suuqay bad kala furfuraysaa heega iyo waxa iga sheekeynaysaa waa maxay waa waama waxaas sidaa darteed waxaan idin sheegayaa war dadka baraaruga aniga hay sheer garanina waxba hay sameeyay laakiin baraaruga dad calo ina Cajar Mustafa Cajar alaabti soo xirxiran tahay tigre soo goosay oolaha tigre cid iska celisana ma haysan soo goosay oolaha Mustafa Cajar alaabti soo xirxiran tahay idinku meeshina iska jooga alaabti wallahi way xirxiran tahay oo billaah tala way xirxiran tahay isbuuca dambe Kenya ka dagi oo sumcad lahayn xataa oo tolkii kala dilay bariga hore waxaa la moodaa nin fiican oo yar dhalinyaro active laakiin imika sumcadna male yuna garaafan wacyiga jira la soco iyo leedaha iyo hawada waxaan istaba maraya yaan habeenkii maalinta cadaanka oo ku kala garanin waa inay maskaxaada shaqayso oo waxa soo socda imanaya aad garata Tigray Ethiopia uu qabsaday ana taa ku sheegay xaqiiqo uu qabsaday ana ma jecel Tigray iyo Axmaaro iyo حتى أوربانا جعلين أوربانا يكو محاولة أن أتابعنا جعلين يفكر نبي يتذكر أنا المجعل مركز ساعة ترتد ورطاني وبراروغا أو حسكة عليا أو إحنا وعد ما يسارة لواري ما يسارة طب إذا كانت تغير تكرار إذا خير با إثيوبيا ساعة وكرا يمكن يسوع صعبة حدود كنا محنا كرتان أحمارة محل الدفاع عشان أحمارية تقريبا محل ذي كريين حبش هذا السكولة يا أما سيدا يلعجر قرية ومصحة هاد مالي ما داولا سوا نين قرية ومصحة يا نين وعالم ولي وإتوبيا ربيا كان قرين قرية سيدا درتد بريبا أنا حتى ما ديقني ما تاقرسني الحقيقة عن ما دي ما تاقرسني وهي أفر يا عبد الله أبو سكرة فلسطينية ما دي لفتيسو أفر يا عبد الله هو محايو
afakaandhi iyo ciyaal yaryaro caruuraa buu iskala fadhiisiyaa asaga laftiisu waa fakin maadayga laftiisu laakiin anu waxaa uma joojinayo war meeshan dad idinma jooga dad la soo baxa dad wax qabad ah soo saarta oo nalaf hadday tahay iyo hadday xukuumadda tahay labadaba dad wax gala soo saarta meeshan dad idinma joogo maadii laba yararoo maxaa ku yaroo beri ina cagjar ku yaroo ina cagjar toori lagu dhuftay kula xidhay maxaa magaysi baa wuxuu yidhi hebel baa wala xidhay hebelku ma rasuul buu ahaa hebelku ma rasuul buu ahaa hebel baa wala xidhay buu yidhi hadda waa maadaygii dhan hebelku ma rasuul buu ahaa waxaa la yaabanahay maaday horta qof ka caqli xun wallaahi inuuna ummadda soomaali galbeed ku jirin qof maaday ka caqli xun inuuna ku jirin oo bilaahi tallaa xataa mustafahan aan haysto maaday baa kasii doqonsan oo ka caqli xun laba yarar bu dhinacani dhinac iska fadhiisin oo ku yaroo afakaano leehoo kenya qaxooti ku ah iyo ku yaroo kale oo markaasa afar yaa cabdillaah buu is ag fadhiisi war meeshan ma raa cabdillaah le mise raa isaaq waale mise maxaa su-aal baale meeshu mayna meel soomaaliyeed ahayn waaba yaabanaha anugi meeshu mayna ummadda soomaaliyeed ka dhaxayn intaan maadayna kaga baxo laakiin ummadda anu ummaddan la hadlaya caawa mustafiya maaday uma jeedo laakiin waxaan la hadlayaa shacabka ama ciidan ha ahaado dadweynaha la hadlaya ama ciidan ha ahaado ama shacab ha ahaadee war nimankani alaabtooda way xidhxidheen istifaaca niyaho oo wax noqda waad dhimanaysaan qof wala waari mayside xataa annaga haddaad tihaan imaadda waanu imanaynaa wallaahi oo bilaahi tallaahi inaana meeshan waddan aan leeyahay maaha halkan aan jooga wallaahi haddaad tihaan 20 qof hadday igu tiraha inaan iman markaasaa darteed beri baa waxaan idhi laandheere oqdadoobay baan wax ka sheegay moogta madaxweyne oqdadoobay ama guddoomiye oqdadoobay waa karoone madaxweyne oqdadoobay waa karoone maaski ha laga xidho maaski madaxweyne oqdadoobay maaski ha laga xidho waa karoone anu madaxweyne waa hebel ma oran laakiin ninkii qaataale de guddoomiyana ma oran guddoomiyihii qaataale maaski ha laga xidho madaxweyne oqdadoobay guddoomiye oqdadoobay maaski ha laga xidho waa karoone beri waxaan laandheere oqdadoobay waa aids laakiin qabiil baa qaatay markaa dee cabdiile baa ku kalifay inay qaataane laakiin anu maan iyaga odhan laakiin waxaan idiin sheegaa iminkana madaxweyne oqdadoobay waa karoone markaasaa darteed niman yahow dadweynow isku tashada oo wax iska dhiga oo dad noqda dadkani alaabtoodii waa xidhan tahay tikra soo goosay wax walba soo dhaaf wiidan hayaa haddaad iska celinaysaana dee idinka idin taalla haddaan iska celinayna dee idinka idin taalla waan salaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu yaa